shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa shir cilmi baaris ah oo dabcan la doonayo arrimaha disaasterka iyo runtii in cilmi baaris looga sameeyo oo runtii ummadda Soomaaliyeed waxaa haysato masiibooyin badan haysto annaguna dee waxaan hay-addii la yiri maareynta masiibooyinka tahay annagu waxaan rabnaa masiibada intay sadhicin aan ka hortagno ummadda Soomaaliyeed ay guri kasta iyo geed kasta ay ku gaarto resiliency-ga iyo adkaysigeeda marka shirkan waxaan ugu talagalay in cilmi baaris ka soo baxdo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay soo sameeyeen oo wax walba laga og yahay si cilmi baaristaasi loogu howlgalo dabcan dee waxaad dareemi kartaa shirka horantood intaad ka soo qayb gashay iyo hadda inta ka soo qayb gashay waxaa yimid dowladda qaybaheeda kala duwan boardafta sectoriska caafimaadka waxbarashada beeraha xanaanada xoolaha cid kasta oo ay arrimaha Soomaalida waliba qaasatan hay'adaha dadka la shaqeeyo kulligood waa ka soo qayb galeen waxaad dareemi kartaa marka inuu shirka horantood kasii wixii badan yahay iyo dabcan baybareska iyo aqoon-yahanada ka qayb qaata kalkan uu ka ballaaran yahay iyo cilmi baarista laga soo saaro dabcan dee hay'adii waa maqlayseen dabcan waxay dhaheen annaga wixii aan markii hore qaban jirnay way iska soo yaraadeen waxaan doonaynaa ummadda Soomaaliyeed inay isku tashato marka waxaan u arkay ka soo qaybgalkooda maanta inay noo digayeen inay dhahayeen on your own isku tashta ummadda Soomaaliyeed aad tihiin ama aqoon-yahanadiina aad tihiin ama aad dowladdii aad tihiin ama aad ganacsatada aad tihiin cid kastaa maanta meesha joogto wayna ka sheegeen dabcan dee cid kastoo nool waxaa la rabaa ida ilaahay buqca ku noolaysiiyey dabcan buqcadaasna wax walba ilaahay ugu beeray ida annaga naga rabaa inaan beerahayna xoolahayna kalluunkii ka shaqayno waxbarashadii kordhino oo dee aqoontii adduunyadu waa isbedeshay qaabka wax loo tabcan jira qaaban ahayn loo tabcadaa beeraha xoolaha qaaban kii hore qaaban ahayn loo dhaqdaa cimilada iyo wixiga aada loo ilaaliyaa annagaa naga rabaa inaan runtii arrintaas runtii aan iska waxayno dabcan ummadda Soomaaliyeedna inay waxa la rabaa ama qurbaha joogto ama ganacsi ahaato ama mid kalentoodo xoolo ka shaqeynatay aan iskaga tashan hadii leeyahay waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala ummadda Soomaaliyeed oo runtii isku tashatay ummadda Soomaaliyeed oo wax ka fahantay xaaladda ay ku jirto dabcan wax ku dhisatay ummadda Soomaaliyeed oo runtii sayta hadda ka fiican inaan insha Allah tacaala gaarna hadii leeyahay